waxaa jirta su'aal weyn oo ku soo aroortay quraanka subxaanahu wa tacaala alla weyna ku weydiinaya addoommadiisa. su-aashaas haddee waa su-aal khatar ah marka si loo fiiriyo waa su-aal macquula oo fudud. su-aashaas jawaabteeda waxay u dhigantaa adduunkaaga oo dhan, taasoo lagugu abaalmarin doono maalinta qiyaamana inaad jannada ku gasho ama inaad naarta ku gasho. marka haddii allaweyne su-aal ku weydiiyana haddee in looga jawaabo waa qasab, ma fahanta. isagu kaa dooni maayo wax jawaaba oo in allaha yaclamu sira wa akhfa, in allaha callaamu alghuyuub, wax walba ilaahay wuu la socdaa. ilaahay uma baahna inuu su-aashaas adigu jawaabto, laakiin adiga inaad isaga jawaabto ay tahay, ma fahanta. inaad adiga isaga jawaabto waaye su-aasha jawaabteeda hadda lagaa doonayaa, isla adiga ayaana u baahan jawaabteeda, ma fahanta. wax jawaab oo ilaahay kaa doonaya ma jirto. marka su-aasha marka waxay leedahay famaa dannukum birabbi alcaalamiin, rabbiga caalamkan khalqay oo dhan maxaad u malaynaysaan? maxuu idin leeyahay? sideed u aragtaan? maxaad moodaan? hadba adiga sida aad rabto u dhiga mawduuca, laakiin su-aasha waxay ku socotaa bini aadanka. famaa dannukum birabbi alcaalamiin, si aan u fahanno mawduuca su-aashan aadka weyn, waxaa muhiima inaad tusaalooyin soo qaadan waxyaabaha bani aadanka uu ku fiican yahay hadda oo marka si loo fiiriyo, laakiin aan inta badan annaga u fiirsan waxaa ka mid ah sabarka. tusaale aan soo qaadana sabarka, waxyaabaha yar lagu sabro. number 1, tusaale kaba soo qaad adigoo meel fadhiyo baa qof aadan aqoonin kusoo dul istaagay, uu kugu istaagay, waqtu kaaga istaagay, waad fiirisay adigoo markaasi ka xun waxa uu kugu sameeyey. kadib indhaha ayuu kaaga baaqay, wuxuu kuu muujiyey inuu ka xun yahay wixii kugu sameeyey, kulamausan hadlin. ma aadan sii raraac, adigana waa iska daysay, waa isaga sabartay. waxyaabo yaryar oo kale oo aan fiirsanin baa jira oo mar walba hareeraheena ka dhaca ama annaga nagu dhaco yaryar oo aan isaga dulqaadan baa jira, laakiin hal shay waxaa jira qof walba aadan u samayn. mataqaan halkaas shay wuxuu yahay? halkaas shay wuxuu yahay waxaa la dhaho kalsoonida, athiqa. qof walba ma ku kalsoonaataa? maya, qof walba kalsooni kuma qabtid. waxay tahay hadii ilaahay ku samadiidane waa ma sahlana inaad qof walba aamintid. kama soo qaad qof aadan aqoonin baa ku yimid, waa wareysateen, waa sheekaysateen, ma laga yaabaa inaad sirtaada isla markaas u sheegto? maya. si aad qofkaas ugu kalsoonaato oo aad xogtaada u wadaagto waxay qaadanaysaa waqti, in muddo inaad marka hore dad asxaaba is yaqaana aad noqotaan, markaasaa laga yaabaa inuu arrimaha wax ka ogaado, laakiin ka hor lagama yaabo, adigoo aan cidna uga danaynin oo naftaada ku ilaashanaya, ma fahanti. waxaas iyo wax la mida oo tiro badan baa hareeraheena ka dhaca maalin walba oo aan laakiin annaga ku baraarugsanan baa jira. calaa kullin ma fududa inaad qof walba ku kalsoonaato oo aad xogtaada u sheegta. marka bal aan isweydiinna marka xigta, intee la-eg baad qof ku qabi kartaa? intee la egtahay? xaggee gaari kartaa heerka kalsoonidaada? kama soo qaad xaas baad leedahay, xaaskaaga waad ka tagtaa, waad safartaa, caruurta, hantida, wixii dhan waad uga tagtaa, ilaa iyo meeshaa doontaad tagtaa, adigoo aana marnaba ka welwalaynin in haddii ilaahay kuu samadiidana ku khiyaanto ama khalad yar ay kugu samayn karto. marnaba kama shakisid, macdallah, xaasha lilaahi, gabdhahena ceebta waa ka salim. marka maxaa la yidhahdaa arrintaas oo kale? waxaa la yidhahdaa kalsooni heerka ugu sarraysa ayaa la dhahaa. waxaa la mid ah canug yar oo naaska hooyadii weli nuugaya. haddii hooyadii ama walaalkii ama qof familkiisa ka mid ah ama aabihiis ba aan idhaahde hadduu kor u tuuro haddii ilaahay kuu samadiid gacmaha ka daayo, inta uu sugayo canuga uu soo socdo, waxaa laga yaabaa in canuga kugu qosla laga yaabaa. wuxuu aaminsan yahay inaan marnaba aadan sii daynin kalsoonida uu ku qabo, heerkaasay gaarsiisan tahay. waxaad dhihi doontaa, waxaad kula doodi doontaa ciyaalka yarada waxba garatada iyo dadka isqaba aad ka hadlaysaa oo ay waxaan kuu sheegayaa dad waxaa jira aadan aqoonin oo aad ku kalsoonaata mararka qaar. ka waran waxaa ka mid ah bayloodka, ka waran duuliyaha diyaaradda wado, maadaa yaqaana? tikidaa iska jarataa, waa iska raacdaa, sax? kalsoonida ugu weyna intaas leegna waad ku qabtaa insha allah biidni illah. hadduu ilaahay yidhaahdana waxaad ku niyadsan tahay inaad gaari doonto markaasi meesha oo rabtid si nabada insha allah. waxaa la mid ah dhakhtarka qalliinka oo marka aan qalliin galayno isbitaal baan tagnaa, kadib waxaan idhahdaa qofkan waa dhaqsi in lagu qalo, kadibna dhakhtarka qalaya annagoona aqoonin baan isxaadirinaa oo nala duraa oo dharka naladan laga siibaa, kadibna nala suuxiyaa. halkaas baan iska naalnaa. khalad walba ayuu dhakhtarkaas geli karaa, wuu qalqali karaa, bini aadan waay, wuu qaldami karaa, wax walbaa dhici kara.
kalsoonida heerkaas gaarsiisan qofka aad ku qabtana qof aad taqaana ma ka waran bani aadan daciifa oo mararka qaar aadan aqoonin ama waqada taqaanaba ka mid ahaadana ay sidaas u kalsoonta qiyaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray ku khalqay adigoo aan jirin xab iyo dheecaan ka soo saaray hal kolba heer ku soo marsiiyay calooshaas kugu dilay ku sameeyay kugu dhex irsaaqay adigoo aan neefsanayn kugu ilaalinay ku dilaaciyay lab iyo dhadig waxa tahay bal ka waran intee la kalsooni ay tahay inaad ku qabto fama dannakum bi rabbil alamin sida warta ilaahay bal ka waran kalsoonidaas miyuusan ilaahay u qalmin intee dhib ayaad ilaahay barida oo ka saaray intee mushkil ayaa xal u weysay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka saaray ilaahay waa midka ku irsaaqa waa markaad xanuunsato midka ku caafiya waa wax walba oo aad qofka ku sii ilaahay subhanahu wa ta'ala waa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha wax walba nimcada ilaahay hadii la xisaabo lama dabatay karo arrintaas waxay cadeen u tahay hadii ilaahay ku sameeyay nimco wax badan oo bini aadanku aadan ka helin oo ilaahay ka heshay subhanahu wa ta'ala marka ilaahay adoomadiisaba waad ku kalsoon tahay maxaa ku diiday ina athiqa ma'a Allah la imaado bal ka war su'aashaas su'aal muhiim jiddan ma nabi sallallahu alayhi wasallam hadith sahih wuxuu ku yiri la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah sahih muslim ya imam muslim soo saaray sahih wa midkiin yuusan dhimanin ilaa inta waxa uu ka aaminsan ilaahay ilaa ay ka wanaagsan tahay mooyee inay wanaagsan tahay mooyee mar walba halka rabaa inaad khayr ka filato ilaahay subhanahu wa ta'ala dilay ku sameeyay aad ku kala soonaato oo dilay ku sameeyay aaminsanata laga doonayo ma fahat balan soo qaadano quraanka waxa ugu dhadhar qisaska cajiibka waxa kamid nabiga Muuse alayhi salaam qisaskiisa way dhadhar yihiin ma ka gaarno laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa dilay ku sameeyay in yar oo kamid ah waqtigii ugu dambeeyay ee fircoon isaga ay kala faaruqayaan waqtigii ugu dambeeyay waqtiga kamid ah ma nabiga Muuse alayhi salaam iyo qoomkiisa ka carareen fircoon iyo ciidankiisana way ceyrsadeen meelba maalin bas u daba ordayeen ay ugu daba socdeen marba meel ugu sii saarayeen heer waxay gaareen nabiga Muuse iyo qoomkiisa inay bad soo celiso meel ay ka baxaan ay waayaan kadib qoomkii Muuse alayhi salaam waxay dhaheen inna la mudrikuun bayna waana la qabtay waana la hayaa waan lagu dhagan yahay bas waana dhamaatay baydan muxuu yiri nabiga Muuse alayhi salaam matqana kala oo yiri inna ma'i rabbi sayahdin bal fiir kalsoonida oo ilaahay ku qabay ilaahay ba irid ifuriya ilaahay ba dhinac dhigay ilaahay ba ihanuunay buu yiri subhanahu wa ta'ala ma faanta arrintaas waxay daliil u tahay kalsoonida nabiga Muuse alayhi salaam uu ku qabay ilaahay subhanahu wa ta'ala balan soo qaadana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waqtiga kamida xilligii ay nabi sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakr ka hijroonayeen magaalada Makka sidoo mashaaba ay uga baxeen waxa dhacday intay cararayeen laga war helay kadibna madaxooda la dul dhigay hanti intaas oo boqolaal neef oo geela dheeraniki ay keenay intaas aan siinaya kadibna nin walba oo isku arkay inuu yahay farasiyan dagaalyahan orodyahan waa la wada raadsaday waa la wada ceersaday ma fahanti ilaa heer iyagii dadkii ay ka hormareen hortoodna mareen dhinacyada ay ka jireen qolyakan ay raadkooda ku soo socdeen waxa dhacday markay ogaadeen in la daba eryanayo dhinac walba laga jiro inay god yar galeen way ku dhunteen isaga iyo nabi sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu markay inta marayso godkii ay galeen kuwii kale ee raadkooda ku soo socday baa dul yimid godkii ilaa raadkii meeshii buu ku dhamaaday godkii dul yimideen waa inay garan waayeen meeshii ay galeen waxa dhacday Abu Bakr as-Siddiq inuu yiri يا رسول الله هدي مدكود لبديس لو دخيده او فيري حتى وانا لقفت خلاص نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام وحودهي لا تحزن ان الله معنا هول ولن همرجن ان يجبن الدبارتون حنون هدريم الهي بين الجري مرتا حديث انت انبياء الهي بات كورميسا سكلا دان وديغو مشركين تي الهي او نغو ورما قرانka markii ay bada galaan waxyaabaha ay sameyn jireen waxa kamida doomaha markay raacaan oo badaha galaan oo xaaladdu ku adkaato doonta la qalibanto oo la wareero oo hawada isbedesho oo cimilada isbediyaan oo badda kacdo oo waxa la yiri ilaahay bay bari jireen si niyada ilaahayna uu ka aqbal jiray ilaahay wuu ogaa in macnaa wax ay sameyn doonaan khaladaadka ay ku kici doonaan markay ku soo laabtaan bariga wuu iska ogaa inaysan caabudeen wuu ogaa laakiin sababta waxay ahayd dilay ku sameeyeen ikhlaaskoodii dartood niyadoodii sameed darteed baa lagu aqbalay ma faanta ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri isagoo ka waramaya wa idha massakum ad-durru dalla man ayraahdo وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم مجدا دب مركو إذن كنت هابطا بدا مركات كل حجرتان وحي عابد جرتين إذن كلمان أنيقا أيادي عابدان هيا كدم حراعي
marka aan badda idinka soo badbaadino bariga idin keenana haddee waxaad samaysaan wixii aad samayn jirteen oo keliya tafcaluuna maa tafcaluun ma fahanti marka bal ka warran ilaahay subxaana watacaala ka aqbalaya gaaladaas og mushrikiinta inay ilaahay u shariigayaan oo ay caabudin oo aysan khayr lahayn beri markii ay meesha ka baxaanna inaysan ikhlaaskoodii sida u jiri doon isagoo og buu ka aqbalaya bal qiyaas adiga macadallahi adigoo addoon ilaahay ah mu'mina ikhlaas leh diin leh caqiida leh bal ka warran ilaahay miisan ka aqbalin ka aqbalaya oo keli waxaa laga rabaa in ilaahay wax weydiisato niyadaadana aad wanaajiso alxusnu dhanna billaah laga rabaa wanaag mar walba ka raja ilaahay subxana watacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu